السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وحرونت الله تلين دتكي هرمرنت الشقة ودكتور سفين قف الله الله يا نسود هذا ما شاء الله وحن ربع مانتي برنامج كأن الله يا وحق كساب سي هاي هرمرنت رميجة أيوه كساب سي هاي وأنا أقول هاي رميجة مركز أبارها مركز رميجة كسوق حان أو كسوق حان أبارها يدباتها كهشة مارتي حق رميجة أباره مركز لكل مان iyo maaragtay sidana waxay noqdaan soo barakacaan oo ka soo barakacaan gobolkooda ama meesha markaas ay joogaan ayagoo inta badan ba abaaruhu ay u maaragtay saameynta ku yeelato ayaa waxay soo galaan tuulooyinka markay soo galaan sida badan ba inta badan ba waxaan horay dhowr jeer uga soo sheekeeyay inay dadkaas laba mid noqdaan dad tuulooyin ku milmay oo dhaqaaq waayay oo halkaas iskaga jooga oo dhibaato badan ku qabsato oo wax kasta la kulmo sidaan hore u soo sheegay halkaas inta badan tuugsigooda iyo maaragtay dhibaateyntooda iyo halkaas iskaga dulqaata sababta qofku markuu barakac ku yimaado inta badan dadka meesha ku dhasho dhalinyarta ma ahane dadka waayeelada oo soo barakacay lama qabsan karaan tuulada ama magaalada ay soo degaan sababta lamana soo wadajiyo magaalada gudaheeda meel baadiyaha la soo dajiyaa waxay intaas marka ay la qabsamaan sida qofkii magaalada inta u soo qaado maanta uga tuugsan lahaa ama wax yar uga qaadan lahaa ama hay'ad inta wax u keento u tuurtuurta iyo qof maartay iyo dad kaleeto oo ku dulnoolayaal la yiraahdo oo dadkaas masaakiinta iskaga dulnool waxaan rabaa maanta marka inaan si ka duwan qaybta horumarinta shaqada la yiraahdo shaqo dadban ayaan rabaa inaan maanta horumarinta reer miyiga uga faa'iideysto una sheego kuna baraarujiyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay u baahan yihiin horumarin wax la yiraahdo oo dhinaca loo horumariyo shaqada in si shaqada lagu horumarin lahaa dad baa waxay isleeyihiin qofku waa reer miyi sidee shaqadiisa si dadban loogu horumarin karaa walaal horta laba maado ayaa lagu horumarin karaa in dadkii haddii abaaruhu keeneen oo dadkii abaarihii soo keeneen oo magaaladii lagu soo noqday kow in la siiyo xoolo iyo haddii ilaahay kuu reeyahay oo xoolo loo gado oo tuuladooda lagu celiyay meelihii ay deganaan jireen waa u sahal in lagu celiyo xoolahoodana la siiyo xoolo loo gado ari loo gado geel loo gado dadkii meeshaas lagu celiyo sababtoo dadka saa haddaan la yeelin waxay noqonayaan dad aan weligood gacanta ka baxaynin dadku dulnoolayaal la yidhaahdana iska haystaan meelaha maaragtay buushas u sameeyaan 30 sano hadday barwaaqatay hadday geestaan meeshaas gacanta lagu taagto oo tuugsiga halkaas lagu wado dad badan oo xataa dhaqankaas maaragtay awal ka soo horjeeday ama noloshaas niyad jabka ku aan weligeed aan gelin baa arintaas looga faa'iideystaa waxaan rabaa marka taladayda iyo tawfiiqdayda ku socotaa sidii dadkaas loo maaragtay loo shaqo dadban loo siin lahaa lacag ay ku heli lahaayeen loogu celin lahaayeen meeshoodii loogu celin lahaa kow marka u horeyso waa in dadkaas lacagaha sida hay'adaha dawladda laftigeeda kaalin bay ku leedahay ay maaragtay gacanta ugu qabtaan dadkaas meeshooda lagu celiyo xoolo loo gado ari loo gado geel loo gado loo gado beerta loo falo biyo loo sameeyo meeshii biyihii loo hagaajiyo dadkaas marka meeshaas annaguna waa ku faa'iideynaa xoolihii iyo geelii iyo arigii iyo meesha ku badanaya waa markii maaragtay timaado roobku haddii roobku yimaado xataa wax diba gadaal noqonaya ma jiraan oo ka faa'iideysanaya midda labaad walaalayaal waxaa ogtihiin hay'ado waag hore intii hore waa laga ilbaxay hay'ada imaanaya magaalada waxaa leeyahay dad masaakiin ah la soo qorqoro dadka abaaraysan ha la soo qorqoro dad baa la soo qorqorayaa dadkii marka dad badan oo waxaan ogahay ilbaxeena aad iyo aad maasha Allah u ilbaxay oo ka ilbaxay inay kaam fariistaan oo meel maaragtay dad kale ku dul noolaado dad badan oo marka aqoon-yahanana arrintaas u baxay waxayna mudan yihiin wax lagu daydo iyo wax la sheego waxay sameeyeen dadkii magacyadooda la qorahayaa markii hay'adan WFD ma la yiraahdo ay timaado ayaa lacagaha loogu soo dhiibaa kulli macaawinada loogu soo dhiibaa Soomaaliya iyada ka shaqeysa inta badan markaas waxaa la wacahayaa dadkaas maantaas ay soo baxayaan magaalada imaanayaan labadooda lacagahooda qaadanayaan laba qof cid u diiwaan galsan saddex qof u diiwaan galsan 110 wax alla wixii loo hadii 100 iyo inta u dhaxaysa iyo 10 inta u dhaxaysa kulli lacagahaas inta badan ba lagu bees gareeyaa
marka lacagahooda ay qaadanayaan galabtii sonkortoodii badarkoodii ku qaadanayaan xoolahoodii oo dhex aadayaan taas ayaa waxaa la yidhahdaa shaqaalaysiinta dadban qofku isagoo xoolihiisa joogo wuxuu qaadanaya lacag taasna waa midda aad iyo aad Soomaaliya ugu fiican uguna sharafta badan waxyaalaha maaragtay inta badan laga sii ilbaxayo in inta tuulo geeskeed dadkii la dhoobo ay iska fariistaan halkaas qaac xun iyo qashin habri iyo odayaashii meesha ku baaba'an oo wixii la raba laga samaystay hay'ado nooc kasta oo dhaqan xumo badan ku hadlaya meeshii la keeno intaas marka waxa keenaya maaragtay dadka inaan la iska xil saarin oo dadka aan laga fakirin mustaqbalkooda marka aniga waxaan ku talin lahaa taladii ku soo jeedin lahaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo Ilaahay idinkiis dad doona walaalahana ay maartay fakarkaas ay jecel yihiin inaan anigana maartay geeska kala qabto oo ah in dadka hadii wax la siinayo hay'aduhu siinayaan dadka baadiyaha la aado loo soo qoro dadka markii loo soo qorona meeshooda ayagoo jooga dadkaas waxay caawin karaan xoolahooda oo badar u soo gadan karaan waxay caawin karaan dadka waayeelka oo meesha jooga waxay ku qodan karaan ceelal waxay ku samaysan karaan caano waxay wax caanayal ku marka sonkortoodii bariiskoodii baasadoodii ku qaadan karaan marka in dadka muhiimadda weyn aan saaraya waxa waaye dadka in shaqaalaysiintaas dadban loo sameeyo ee tuulooyinka aan la soo dhoobin ama magaalada aan la soo dhoobin ee shaqadaas dadban loo sameeyo insha Allah dadkaas lacagaha ku qaataan waxay rabaan ay ku samaystaan wixii kalena ari iyo geel iyo wixii loo sameyn karaan loo sameeyo marka horumarinta reer miyiga ee dadka barakacayaasha ee dhibaataysan qaxootiga ku soo baabay maarta abaaraha ku soo baabay waxaan dhihi lahaa on kula talinayaa in sidaas loogu faa'iideeyo annaguna aan ku sharfaano haddaan dadnahay dadka Soomaaliyeed ummadda muslimka ah Soomaaliyeed ayaguna aysan weligood dadka gacanaha hoorsan oo dadka kor dhabnan annaguna aan ku dhibaatoonayn dadka reer magaalka aysan ku dhibaataysan ayagana aan laga faa'iideysan dadkooda iyo ilmahooda iyo xoolahooda aan laga faa'iideysano ay sharaf ku noolaadaan waxaan leeyahay inta badan oo arintaydaas ila qaada ama sidaas jecel ama horey baa hadii alkool fakaradaas aan maarta ku dayashada badan sameeyay dadka reer miyiga inay wax siiyaan lacag dadban ay si dadban ay mushaar u siiyaan sameeyay waxaan leeyahay hore u socda khayr badan Allah idin siiyo aniguna waxaan leeyahay reer miyiga faraha yaa ka bixin xoolihiina yaa faraha laga soo bixin tuulooyinkiina yaa ibar laga soo dhihin magaaladii yaa ibar yaa meelaha wadanka deganeedeen beerihiina iyo arigiina iyo noloshiina yaa la ka soo burburin yaa sumcadiina lagu dheerin annagana waxbaa noo tihiin annaguna waxbaa isku nahay may iyo magaalo waxbaa isku nahay haddaan magaalo aado waa ku sharfanahay haddaa baadiye joogtaana waa ku sharfantihiin marka waa idin salaamahayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu